intaadan galin jaamacadda waa ku muhiim in aad daawato muuqaalkan maxaa yeelay ma doonaysid muddada jaamacadda aad dhiganayso inaad jaamacad gasho mid kale aad gasho mid kale aad ka baxdo ama faculty-gan aad gasho faculty-gan aad ka baxdo mid kale aad u bedelato sidaas awgeed muuqaalkan intuu socdo waxaan kugu soo gudbi doonaa dhowr qodob haddii aad qodobadaas iska fiiriso safarkaada jaamacadda wuxuu noqon doonaa mid aad ku raaxaysato wax problemna aadan kala kulmin Okay. inta aan u gudgelin qodobadeena waxaan marka hore hambalya leeyahay dhammaan ardaydii ku soo baastay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsi sare 2022 intiina kale ee aan imtixaankaas ku baasin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad mar kale isku daydaan maxaa yeelay wax aan suurtagal ahayn ma jiraan waad baasi kartaan faculty-ga aad baranayso waa muhiim inta aadan jaamacadda bilaabin in aad si qoto dheer ah u balaan garayso ama aad u qorshayso oo dib u baar muddadii aad dugsi sare baranaysay maadooyinkii aad ku fiicneed maxaa yeelay dugsi sare waxaa lagu soo bari doonaa maadooyin aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin maadooyinka caafimaadka maadooyinka la xiriira ganacsiga kuwa la xiriira sayniska iyo waxyaabahaas qodobka labaad waa jaamacadda haddaba jaamacadda aad dhiganayso waa inaad ku doorataa in ay tahay jaamacaddaas faculty-gii aad rabtay inuu u yahay faculty main ah tusaale waxaa jira jaamacad caafimaadka oo u yahay faculty-geedu ugu weyn laakiin waxay bixisaa departmentiyo kale laakiin caafimaadka waa faculty-ga ugu weyn ee jaamacaddaasi ay bixiso waxaa jira sidoo kale jaamacad bixiso IT-da iyo waxyaabahaas uu u yahayna faculty-geedu ugu weyn faculty-yada kalena ay u yihiin faculty yar oo soo hoos tago haddaba iska hubi jaamacadda aad dooranayso faculty-gaada inuu u yahay faculty-ga ugu meyn garaysan oo ay ku bixiyaan macallimiinta ugu fiican iyo qarashaadka ugu badan